gudoomiyaha gobolka saaxil iyo mareey ku-xigeenka dekedda magaalada Berbera ayaa maanta shir jaraa'id oo ay si wada jir ah ugu qabteen xafiiska gudoomiyaha gobolka saaxil waxay ku beeniyeen hadallo ka soo yeeray qaar ka mid ah ganacsatada iyo mukhalisiinta isticmaasha dekedda magaalada Berbera oo saaka shir qabsaday waxaana mas'uuliyiintu ay sheegeen in ganacsatadaasi wararkooda aanay waxba ka jirin balse ay shirkadda DP World ay soo saartay shuruudo ay wax ugu tarayso ganacsatada iyagu isticmaasha dekedda magaalada Berbera isla markaasina ay ku ilaalinayso nafta qofka isagu isticmaalaya dekedda magaalada Berbera waxaana ay sheegeen in ay shirkadda DP World ay soo rogtay qalab lagu galayo dekedda Berbera kaas oo ay shirkadu ay u bixinayso hab bilaasha sida ay mas'uuliyiintu ay sheegeen mareey ku-xigeenka dekedda magaalada Berbera Cabdilaahi Xasan Mataan iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka saaxil Jaamac Yuusuf Axmed oo arrimahaasi ka hadlay hadaladoodii waxa ka mid ahaa shaqada dekeddu sideedaba u socotaa in loo diideeno ma jirto waxaana weeyaan muddo bil horteeda ayaa DP World waxay soo saartay markaasi policy ay yiraahdeen waxa lagu dabaqayaa DP World-ka adduunka ka shaqeeya oo dhan taasoo ah qofka badbaadada qofka oo waxay codsadeen marka in la xidho koofiyadda imika anigu aan sito kabaha muxuu ahaa safety-ga iyo jaakeetka aan xidhnahay oo ay yiraahdeen qofka in badbaadadiisa waajib baa naga saaran waxaan jeclahay dadku markaa inay hawshooda gutaan oo ay socdaan iyo naftooda markaas la badbaadiyo ayaanu doonaynaa in muddo ahba DP World arrintaas bil horteed bay soo bandhigtay baamiska waa loo sheegay wiigii hore arrintu ay dhacday markaa waa la kordhiyay waxa lagu yiri soo diyaar garooba DP World waxay tiri idin kama yeelinayna bilaash baan idin siinaynaa waxana waa wax markaasi iyaga u dan ah xalay u dambeysayna DP waxay soo bandhigtay danta iyaga ugu jirta marka sidaa aawadeed waxaan ku celinayaa aan leeyahay ma jirto oo looma diidin cidna looma diidin dekeddu way u furan tahay qaranka Soomaaliland cid kastoo ka garanaysa hawla ka fushanaysa laakiin cidda gelaysa meel walbana ma aha waa albaabada meelaha dekedda u dhow gaar ahaan laba meelood albaabka shanaad oo halka dekedda laga galay maraakiibtu ay taagan tahay iyo albaabka tobnaad oo ah nooca terminalka containerada sida aawadeed qaranka ayaa dekedda leh DP World way inoo maamushaan qaranka Soomaaliland iyo xukuumaduna waxay mar labaad halkan faraysaa nooca mushtarka iyo mukhalisiinta inay arrinta u hoggaansamaan oo ay qalabkaas soo qaataan shaqadoodiina ay markaasi dib u cusboonaysiiyaan intaasaan insha Allah ta'ala ka codso wixii cabashada hawsha socota markaa ayaa la keeni karaa markaad ganacsatadan wax dhiga oo maanta dekedda haysta ma jirto qalabkii la lahaa qalab baa jira iyo waxan baa jira maanta way ka baxday shaqadu sideedii u socotaa ganacsatadu waxay ka fooxinaysaa waxa weeye dharka safety-ga loogu talagalay waa garanka yar iyo koofiyadda iyo kabaha DP World u dalma laakiin qofka bini aadanka u dayihiin dekedda aan ku ganacsano waa 400 mitir oo meesha container-du ka degayeen meesha xooluhu ka degayeen baashan waxay ka tahay cid kasta oo madaxa wax kaga soo dhacayaan ayay safety u tahay DP World markaa u dalma laakiin qofka ganacsadaha waa u dal way safe kaynaysaa madaxiisa ilaahay laguma darin kabahan hadda ay waxaga kaga dhacaan waa kuwii safety-ga loogu talagalay laga shaqeeyay shirkadaha caalamka DP World waxay tiri alaabtaas oo dhan kasta oo meesha galaya lagu siiyo bilaash marka ganacsatadu waxa ay ku diidan yihiin deeqda waliba DP World ku deeqday leedahay meesha ku soo gala waa safety-giini waxay ku diidan yihiin annagu wali ma garan hadalka mas'uuliyiinta ayaa ka dambeeyay kadib markii ay qaar ka mid ah ganacsatada iyo mukhalisiinta isticmaasha dekedda magaalada Berbera ay saaka shir ku qabsadeen hotel Allure ee magaalada Berbera isla markaasina ay ka hadleen sida ay waqtigan dekedda magaalada Berbera u shaqeyso iyo shuruudaha ay soo saartay shirkadda caalamiga ah ee isticmaasha maamusha dekedda magaalada Berbera ee DP World waxayna ay ganacsatadaasi ay hadalka isaga daba mareen in aanay ahayn sifo sharciye qalabkan ay shirkadu ku soo rogtay dekedaha kale ay maamusha caalamka ilaa Dubai baan uga hadalnay xamriya uga hadalnay dekedaha kale ay maamusho jaakeedkaaga u baaqa cidii aad shaqaaleeyeen wixii ay xidhanayeen koofiyadu iyo wuxuuda ee maraakiibta hoos galaysa ka shaqeynaysa meelaha halista DP World waxay
laakiin shaqa dadka kale ee wax ka raranaya ama wax haddee badankeeda ay geysanaya ama qalab geysanaya sidee loo kala ama wax ka cashuuraya waxay ganacsatada ahi waxay xidhaan oo keliya saayada ayuu keliya teeda kale ma inta berbere ka maciishadoota ee ama gaadiwal ha noqoto ama ijir ha noqoto ama mukhalis ha noqoto ama mid maxaa dhahday u shaqo tagaa ha noqotee miyaa loo wada xidhi karaa koofiyad bilaya kaban xasan miyaa loo xidhi karaa annagu waxaan nahay dad dee dhowr iyo labaatan sano ama ilaa iyo intii ka dib la sameeyey midna ka shaqaysanayay arrintanna maaha wax dee horu dhacay oo timi waxa weeyaan annagu waxaanu gaadiid ahaan waxaan ku geli karnaa oo keliya edin card tawfiiq leedahay oo samaysan annagu markaa waxaan u sheegaynaa dadka iyo iyagaba iyo ciddii kala dhegaysanaysaba khaladaadkao dhan iidoo baa kala fugan annagu diyaar waxaan rahay inaan marakib soorno in la dejiyo iyagaa ka mas-uula oo si sida ugu dhaqsaha badan loo dejiyo haddii se ay dejin waayaan marka gacan kale isku hayaan waxa weye dhibaato qofkii ummadda wax soo rari karto waxa laga hadlay dan weyn baa laga halaan u tagnay maaray baan la joogay ummadan la joog war waxaan ku waa dan weyn baa laga hadlayaa war hootu koof wax degada la yiraahdo xamariya yaga maamula shaada lagu galaa dadka shaqaalaha ka qaataan Djibouti ga maamula maxaan kaga duwanay